ما أنت هنا ولا يردك شوقه ناس عانودنا يموقتو aad baan ugu mahadinayaa dadkan badan soo dhaweeyay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada odayaasha culimada shacabka intoo dhan waa ugu mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan si fiican iyana ugu mahadnaqo Maxamed Xaaji Aadan iyo Faysal Cali Waraabe oo aan Djibouti wada joognay oo iyagu abuurka geeyay halkaas oo iyana halka dadka ugu soo dhaweeyay kamidka ah waxaan raacsanayaa wada hadallaan noo bilaabmay war wax badan baanu rabnaa inaanu ka wada hadalno oo ka gungaadhno oo waxa danaha ay Soomaaliland leedahay iyo danaha dadka reer Khaatuma ay leeyihiin in la isqonsiiyo annaga u aragnay inay danoota annaga u aragnay nabad inaanu ku hirno annaga u diyaara intay doonayso wax qaadato inaan u dhabaraadeeyno wada hadalladaas waxaan markaa rabaa halka inaan ka sheego nabad iyo wax lagu heshiinayaa oo ayaan raalli ka ahayn dadka reer Sooliya Sanaag iyo Cayn ma dhacayso laakiin waxa la rabaa towtow iyo koox iyo nintooxsi meelaha wareegaya oo aniga baa talinaya warnooma taalo kuwa hadda Soomaaliland kamidka ah ee dawladda ah war kuraasidooda iyo manaasibtooda duulimaan kuma nihin war haddii loo arko iyaga aba khibrad yeeshay meesha joogay inay iyagu sii joogaan wartaa waxba kama qabno war kuwa hulaab xun meelaha la wareegaya war waxaan leenahay waxay noogu badinaysaa inaynu isu nimaadno inaynu xoogageena isu geyno war wax gooni aan u leenahay ma jirto annaku taasaanu ogolahay dadka meelaha wareegayeen lama tashan wariyo in la wada tashado ma ogolihiin hadday diyaar u yihiin in la wada tashado annaku waxaanu tuurta ku sidanaana ma ay jirto waxaanu dadka ka qareenaynaana ma ay jirto waxaanu ku hiranaynaa waxa ummadan dantooda war manaasib uma soconno war baabuur uma soconno war hoy cad quursi naloo tuuro uma soconno war waa ku talax tagayaa waxaan qabo halka hadaanan ka oran meel kale aan ka oranayaa ma jiro waray waa rabnaa midnimadeena inoo ah waxaynu rabno midnimadeena salo ah war aan is aragno oo yeenan isu muuqan waray danteenu taasay ku wada jirtaa war ninkii maanta talahaya ninkii baanaay lagu fasax ninkii talahayo ahlan wa sahlan ninkii sala anigaas maroorsanaya oo reer hebel baanu nahay aday ku taal oo reer hebel kaligood go'aan gaari kara kaligood Soomaaliland la heshin kara ma uu jiro waxaan rabaa arrin inaan nabadda iyana ka idhaa waa run taa naga dhaxaysa annaga iyo Soomaaliland yaa ta muhiimka